Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa eFootball ama Konami meel walba aad joogtaan waa idin salaamay. Salaan kadib maanta waxaan jeclaystay inaan idinka dabageeyo waxyaabaha maalinta Isniinta ah la keeni doono. Makonis free ah baa la dhiibi doonaa, ciyaaryahan free ah baa la siin doonaa. Waxaas ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato, waxaan kaa codsanaa inaad YouTube-kan markaasi like aad noo saarto muuqaalkan, kadib YouTube-kan aad subscribe inoo soo dhahdo. Maalmahan muuqaalkeeni viewskiisa wuu socdaa, laakiinse like-kiisa ma socoto. Muuqaalka like saar, like-tana waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka oo dad badan uu gaaro. aad u mahadsantahay haddii aad like noo saartay. Subscribe-na waxaanu gaarnay 150 qof. ma yaro, aad u mahadsantiin inta subscribe inoo saartay, inta ay noo saareen waayahay. waxaan rabnaa inaan idinka dabageeyo waxyaabaha maalinta Isniinta ah la keeni doono, maxaase la qaadi doonaa. Okay, specialkan playerska haddaan tagno, waxyaabaha maalinta Isniinta ah la qaadi doono haddii aan eegno play of the week-yada iyo waxaas lama qaadi doono. kuwan khamiistii la keenay intaan waa ka soconaynaa, lama qaadi doono intaan. waxaase la qaadi doonaa qaybtan IBG-yada oo markaasi English League Tigers-kan waa la qaadi doonaa. 2 maalin unbaa soo hartay, marka maxaa lagu bedeli doonaa inta aan gelin qeybaha kale ayaan isla eegi doonaa. oo intaan lama qaadi doono, waxyaabahan kaleeto lama qaadi doono. qaar baa 5 maalin u dhiman, qaar baa 40 maalmood u dhiman, marka qeybahan lama qaadi doono. haddeer waxaa na quseeyo qaybtan English League Tigers-kan ee qaybta IBG-yada. okay, qaybtan IBG-yada aad haddeer u jeedaan maalinta Isniinta ah waa la qaadi doonaa. okay, haddii maalinta Isniinta ah la qaado, maxaase laga bedeli doonaa, maxaa la keeni doonaa, IBG-yada la keeni doono maxay yihiin. okay, intaas baa anaa kaa dabageenayo. IBG-yada horta waxay yihiin IBG-yadan aa ujeedo European Club Tigers baa la dhahaa. IBG-yadan ayaa la keeni doonaa. IBG-yadan Johan Cruyff, Totti iyo Stoichkov intaan ayaa la keeni doonaa. magaca dhawaaqooda haddii aan qaldo sorry waa ka raaligelinayaa. new intaan baa la keeni doonaa Musow. haddii aan ku hormarno ninkan la yiraahdo Johan Cruyff, wuxuu ku imaan doonaa speedkiisa high asoo ah 91 buu gaari doonaa speedkiisa. accelerationkiisana 99 weeye. ciyaaryahankan top waaye, orodkiisa iyo waxaas dhan top waaye. ninka kale haddii aan eegno Totti, asana dhanka speedka wuxuu ka yahay 84, accelerationkiisana markaasi 91 waaye. ciyaaryahankan iyo Messi markii la isku fiiriyo marka ciyaartooda isku mid waaye. marka niyo isna sidaan buu ku imaan doonaa Musow. ciyaaryahanka saddexaadna waxaa weeye Stoichkov, asigana wuxuu ku imaan doonaa speedkiisa 90, accelerationkiisana wuxuu ku imaan doonaa 97. ciyaaryahanyadan waa ciyaaryahanno la hubo oo maalinta Isniinta ah si toos ah official ah loo keeni doono. waayahay, dhanka kale haddii aan eegno ciyaartooyda horta sidaan bay ku imaan doonaan. ninkan Johan Cruyff la dhahayo 101 buu ku imaan doonaa. ninkan kalena Totti 100, kan kalena 99 buu ku imaan doonaa. marka 99 101 markay ku imaadaan, dhanka kale waxay gaari doonaan ciyaaryahankan la yiraahdo Johan Cruyff wuxuu gaari doonaa 106. ciyaaryahan kale Totti wuxuu gaari doonaa 105. ciyaaryahankan kalena Stoichkovna asigana wuxuu gaari doonaa 104. haddaba ka faa'iideyso maalinta Isniinta ah haddii alina gaarsiiyo. ciyaaryahanadan baa la keeni doonaa. IBG-yadan oo England Englishka waa la qaadi doonaa. IBG-yada aan haddeer shaashada kuu soo saaray ayaa la keeni doonaa. waa si official ah unbaa loo keeni doonaa. haddaba ka faa'iideyso Musow, maalintaas inaad qadeey doonto ayaan filayaa insha Allah. marka intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago. please waxaan idinka codsanaa inaad markaasi muuqaalkan aad like saartaan, YouTube-kana aad markaasi subscribe noo soo dhahdaan si aan u gaarno 200 oo subscribe ah. 150 subscribe ayaan gaarnay. 200 insha Allah afka ayaan u saaranahay.
inta inoo saarin inoo saara dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.